Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa ugu baaqay shacbiga Soomaaliyeed in loo midoobo la dagaalanka maleeshiyadka argagixisada ee Al-Shabaab. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble oo cambaareeyay qaraxii geystay khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawaca ee xalay ka dhacay saldhigga degmada Waaberi ee gobolka Banaadir. Waxaan cambaareynaa ayuu yiri Ra'iisul Wasaaraha weerarkii argagixisada ku qaadeen saldhigga degmada Waaberi. waxaana qoysaskii iyo shacabka Soomaaliyeed ugu tacsiyeynaya saraakiishii iyo shacabkii ku nafwaayay falalka inta dhimatayna Allaha u naxariisto dhaawacyadana Allaha bogsiiyo ayuu yiri Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Roble. sidoo kale Ra'iisul Wasaaraha waxa uu sheegay in falkani uu tusaale cad u yahay sida aysan u xurmeyneynin uguna haynin dhiiga shacabka Al-Shabaab xilligan oo lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. waa in aan si isku mid ah kula dagaalana argagixisada noo diidan in aan dadkeena iyo dalkeenaba nabad kula noolaano ayuu yiri Ra'iisul Wasaare Roble.